halkani waa idaacadda raadiyo baraarug media saaxiibayaal haylaawinaad ku fataan madaxweynuhu Mareykanka Mareykanka isbarashiyo ayuunbay hadiyo waxa weeye wuxuu iibinayaan waxay nabadgelyadina waa kuwii faalmigiisu ay ka hor yimaadeen laba wariye waa kuwii lagu dilay halkan Saba agteeda ama Karoon labadaa wariye waxa dilay faalmiga Muuse Biixi waayo anigu ciidan baan soo maray waxaan 2 sanadood ku diyad baan ka soo baxay sanadka maalin kasta shuruucda ciidanka la akhriyi jiray shuruucda ciidanku wax dhigaysa ninka hadduu ciidan yaho dambi uu galo la doondooni maayo boolisku doondooni maayo ama ciidan kale doondooni maayo xeradii halku ka tirsan baa loo yeedhayaa waa la xidhayaa ilaa imanka ciidankii nimankaa dilay ee hubaysnaa ee burcadda ahaa ee Hargeysa dhexdeeda ka burcadeeyey waxa la hayaanin intii kale waa lagu daba jiraa baa la leeyahay maxaa lagu daba jiraa ciidan bay ahaayeen ma la keeno oo xeradooda indaliyaha soo xarooda oo nin walba soo xaadir dabatana jeelka weyne Hargeysa ma la geeyo anigu waxaan u arkaa arrinkaasi arrin fool xumaa Muuse Biixi markuu ka khudbadeenayay madaxweynuhu Mareykanka wuxuu yiri nabadgelyo anigu haya nabadgelyo ayaan iibinayaa wadankaygu waa nabadgelyo 30 sanadood buu ayaa go'aanshataagan ahaa nabadgelyo ayaa dalkayga ku naaloonaya nabadgelyadii waxa beeneeyay burcadda halka ka dhalatay waxaan leeyahay reerka barjaalaya waa abeesho waxa la ilka abeesho gurtay ka xiriirsan ma aha sida ummadda kale inay qaybsataan laga yaaba anagu mucaarad iyo maxaafidba waxaanu ka mid nahay inuu yahay magaca barjaal lama taabtaan inanka yar iyo gidaarka seexda iska daamid wariya oo ninka taabta inaanu nabadgelin waxa idin sheegaya dhammaan bulshada daawanaysa kilibkaygan nimanka qabtay hadii la soo qabtana waa alxamdulilaahi rabbil caalamiin oo maxkamadda ciidanka la saaro hadii la soo qaban waayana talaabada ay qaadeen la mid ah ayaanu qaadaynaa taasina sharci darray qaadeen annaguna sharci darraanu qaadaynaa waayo sharcigii baa shaqeyn waayay Hargeysa dhexdeedii baa burcad lagu noqday Hargeysa dhexdeedii baa kuwii xukuumadda hayay sidii siyaad barre u dhaqmi jiray u dhaqmeen siyaad barre maxaa lagu ridi Muuse Biixi inta la midkii maxay ugu baxeen waxa weeye jaaka waxa weeye aniga reer hebel aniga ka sareeya aniga ka awood weyn aniga ka xaniya badan maantana waxa ay wadaan xukuumadda imika joogta iyo waxa weeye heegaba waxay wadaan waxa weeye ana reer diiniya ana wadanka haysta ma shaqaynayso taas waxaan idin sheegayaa jawaabta waa helaysaan haddaan ciidanka nabadgelyada iyo arrimaha gudaha iyo madaxweynaha qaranku waa ka bariimanaya haddaan laga howlgelin oo nimankii inaamada ay reer laayaan la soo qaban jawaabta waxay sameeyeen wax ka xun baa dhacaya oo ka dhacaya Hargeysa gudaheedana meel kale ka dhacay waxaan ugu baaqayaa ciidanka nabadgelyada nimanka in la soo qabto talaabo sharciyo la mariyo haddii la soo qaban waayana waa iska daayo faraha ka qaada waxa weeye sharciga shaqeynaya sharcigu hadii shaqooyin sharci darra shaqeynaya taa halkaasaan kaga baxaya madaxweynuhu imanaya madaxweynuhu ha yimaadee Hargeysa nabadgelyo darra ku jirta waxa la cadeeyay Hargeysa gudaheeda in sharci darra dal lagu dili karo anigu waxaan leeyahay war fooqyada dhakadooda la ilaaliyo in sharci darradii waatan ciidankii ina Biixi ku xeeraa waa kuwan cadeeyay suuqa bartigiisii wareeyaasha ku dilaya Maxamuud Siilaayo waa la caayi jiray waxa ay jireen ninka leeyaho salla calee waxa ay jireen ninka leeyaho Aadan Siira waxa ay jireen Ali Gurey waxa ay jireen Sacad Muuse oo dhan gudoomiyaha suldaanka guud ee Sacad Muuse imika adigu waad colaadaada koowaad adigu waad dibadda u saartay adleeda suldaan cusub baan ku sameynaya waa ninka 24 saacadood gudoomiyaha ay jiray isaga iyo faalmigiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisa iyadoon cidi ku aayin iyadoo cidi ku dhaliilin haddii ina keere wariyaha ciidan reerkiina loo soo dirayo leeyahay suuqa bartigiisa lagu garaaco maayo habar jala nooca maaha taad mid baa ka dhacaysa Hargeysa gudaheeda haddaan wax laga qaban oo dawladda Soomaaliland aan wax ka qaban oo ciidanka nabadgelyadu aan wax ka qaban jananka bileeska iyo jananka suldaanka waxaan leeyahay risqa Ilaahay baa bixiya waa layna magacaaba ninka adkaanta iyo ninimada iyo wax qabadka waa lagu sii doortaa oo lagu sii jeclaadaa cidii talaabada qaada wayna talaabo ka qaata waxay la tahay inaan madaxweynaha qaranku inaan odhanayn inankaygi baa waxa geystay maxaa waxa loo sameeyay ama faalmigaygi baa geystay maxaa waxa loo sameeyay inaan madaxweynaha qaranku odhanayn cidii nabadgelyada daratan ku sameysay war ma waxay garan waayeen ummadda dhan
فالدميات كانوا عاسة سمايسة وارحس حاجة عليا قدومية أها ودني أو معارض هذا يدي مدحوينها الاسكرب تاجو حلالا شقايو وحلالا قبطه أنت كورت ما دانك حسب يا جماعة ورتامي جرن واي أنت مدحويني يوم غنوا يبين أي ودك يجوا أنا بتقلي هذا دلك كوا أبوري وحنلاها وردلكو تدكو هالسنة هذا ورمي هذا الدولة دان وهدي ميتقو أي الميتك وشيركو أنا بتباديني وشير بعد دولة دي سينايو وشير كلو تقاو إلا أولاد تقاو حبي قبل شري ما تتن وشير كادو تكتا والله هدي لي ميت باقو أي أنا الميت كا وحبك قبل أنا وقو أي بريش أما وصلت لي بأنا نقاد كنا وحقورنا يعني جبان وحبها هينين واكن هل كاو جوجابو مصبيح كجاب غني أي دولة ديش أدونكي أكونكي الدنيا وحي دولة الصومال عشور الأورورية يوحي صندوق هرمرين تكود عنا أكون كلية أبو كود أكون كلينا سيدي دولة السيناية وحلو قبل شري وحلو ما قبته فالأبارة قرما العتي أبارة قرما وحلو قبنايا روبك كور قرما وحلو قبنايا العتن أكون هذا كود عايشة روب وكداي بري يقل بيت بملك استبوا كداي إلهي وحن كبر أنا روب خارق بين الدول لكن وحلاي ورلعتها كوندا أبارة كوشرتا تذكر روبكو هينا راشين iyo gurmad halala gaaro iyo timir iyo aano dadkan roobku hayna waxa biyo waxay cunaan halala gaaro war gudida abaaru si fiican u shaqeyso war gudida abaara waxa rag badan baa la naanaysayo la dawladdiisa ilaahay waxbay cunaan mid la lahayd moolkii isidii cuna mid la lahaa wuxuu cunay isidii burco mid la lahaa gurigii bari saabku cunay boorame waxa nin walba waxba lagu calaamadinaya dadkuna haday wax sheegaan been maaha waa run anigu halkan cid ka calaamadin maayo laakiin waxa leeyahay mudane Muuse Biixi Cabdi war dawladdaadu qof lagu baxsan kara ma lahe war bal dawlad cusub soo dhiso oo waxa anagu kulmiyo nacna sheegaantii way burburta haduu suldaan xasanna oo sidaan kuugu hiiliyay sidaan kuugu ogaayay kaabar jalaala shaabtibaan oo ahayna kalena abtuumayhi maanta ay dhacday inaad dibadda u saarto sheegaana suldaan xasan oo kaliya ku burburtaba cid kale halkaas ka dhig anaguna waanu ka tanaansinay kulmiyana weyna daayay kulmiyo dambe soo baxaya hadalkiisa daa waxaan leeyahay madaxweyne inta kala dhimanay intaan isku dhiman labada marka timaado dadka laayay faalmigaaga la soo qabto asalaam hadalkii madaxweynaha beeniyay uu yiri nabadgelyo ah dalkayga waa nabadgelyo afkaaliya af muslimba waa lagu soo qoray wariyaasha la laayay